Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa si weyn oo mug iyo miisaan leh loogu soo dhoweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Soo dhoweyntiisana waxaa ka qayb galay madaxa ugu sarreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Baraader Abiy soo dhowow, Afrika waa ilmo adeer iyo ereyo kale ayaa lagu soo dhoweeyay, bal ila daawo marka hore. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa safarkiisan waxa uu daaran yahay heshiiskii dhinaca badda ahaa, waxaana uu u dabaaldegayaa ama Itoobiyaanka oo 120 milyan maanta ay ku faraxsan yihiin in ay helayaan bad, iyadoo oo idaacadaha iyo telefishinada Itoobiya oo dhan laga mashxaradayo isla markaana heesaha qaranka waddankaas ay ka daaran yihiin, waxayna u dabaaldegayaan in ay bad heleen, nasiibna ay ku leeyihiin in dal Soomaaliya oo kale ah ay daris leeyihiin. Muuqaalkaas oo faahfaahsan oo aan ku fasixi doonaa. Sidoo kale, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa tiro hoobiyaal ah ku weeraray garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Laba ka mid ah waxay ku dhaceen meel aan sidaas uga fogeyn garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halka tirada kalena ay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Khasaare tiradaasi hoobiyaasha ay geysteen ayaad barnaamijkeenan ku daawan doontaan. Sidoo kale, isla Al-Shabaab waxay weerareen degmada Balcad oo 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho. Waxay muujinayaan in ay weli nool yihiin oo ay markaasi dagaalami karaan. Taasi wax ma u dhimi kartaa safarka iyo sidoo kale qorshaha Abiy aragtada qaybta hoose noogu reeb. Muuqaalkeena oo faahfaahsan ayaan guda galaynaa. Sidoo kale, furimaha dagaal waxa ka socanayo soo afjaridda Daacish ee wejigii labaad dagaalka dhanka ee Puntland ay soo afjartay. Si gaar ah barnaamijkeena waxaan ku jeexjeexi doonaa in Abiy Ahmed si weyn loogu soo dhoweeyay Muqdisho oo maanta ay xiran yihiin wadooyinka, iyadoo cisbitaaladii dadkii ku jiray ee bukaanada ahaa la booqan la'yahay. Waxaa jira oday Soomaaliyeed oo quraac wada isbitaalka Shaafi oo lagu celiyay degmada Xamarweyne, isla markaana baroor wadada la istaagay. Muwaadinkaasi iyo Abiy midkee xaq u leh? Ganacsiyada wadada Maka Al-Mukarrama oo dhan albaabada ayaa loo laabay. Habeennimadii xalay ahayd ilaa iyo shalay kama jirin wax ganacsi ah. Miisaska cabitaanada iyo wixii jidadka dhinacyadooda yaallay ee Soomaalida ee canshuurta laga qaadayay ayaa la burburiyey oo dowladdu ay burburisay. Qodobadaas oo dhan ayaan faahfaahinaynaa. Sida aad u aragto qaybta hoose noogu reeb, muuqaalka like saar. Like-tu waxay naga saacidaysaa in muuqaalkeena meel fog uu gaaro. Abaal ayaanan kaaga haynaa, waan kaaga mahadcelinaynaa. Waa hagaag. Muuqaaladan waa garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaa sidan loo soo dhoweynayo waa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali. Dadka soo dhoweynaya ee mas'uuliyiinta ah waxa ugu heer sarreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud, oo isagu hore u sheegi jiray in cadowga ay leedahay Soomaaliya uu laba yahay. Midi waa Itoobiyaan, midka kalena waa Shabaab ayuu dhihi jiray. Weliba beydka Ilaahay ayuu madaxweynuhu ka sheegi jiray arrinkaasi oo masaajid ku dhex yaal madaxtooyada qaranka ayuu jimco walba dhihi jiray Itoobiyaan waa cadowgeena. Laakiin maanta shirib ay beeshiisa ku soo dhoweysay ayaa lagu leeyahay Afrika waa ilmo adeer iyo ereyo kale. Bal daawo kilibkan yarka ah ee aan ka helnay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, daawadayaal, dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa khalkhal geliyay ammaanka garoonka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde International Airport ee uu ka soo degayay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali. Ra'iisul Wasaaraha intuusan imaan ka hor ayaa tiradaas hoobiyaasha ku dhaceen sida wararku xaqiijiyeen, laakiin Ra'iisul Wasaaraha waa uu yimid wuxuuna xarig ka jarayaa madaxtooyo si qurux badan loo dhisay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda ee markaasi dhisay iyo dowladda guud ahaanba, waxaana xarig jarkeeda lagu casuumay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya. Hadda wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa in Itoobiya qaabkii baddii la siiyey ay ku soo degi lahayd, ciidamada ay ku keensan lahayd. Heshiiskan si rasmi ah uma cadda, Soomaalidana wax badan kama ogo, laakiin Itoobiyaanku waxay leeyihiin badda waana la siiyey, halka wargeysyada kale ee Afrika iyaguna ay qorayaan in 50 sano
markaasi Ethiopia ay baddaasi iyadu ay markaasi manaafacaadka isticmaali doonto halka kuwa kale ay leeyihiin marinbadeed markaasi waxaa la siiyey Ethiopia oo markaasi ciidamo kaliya ay ku haysan doonto isla markaana ammaanka gobolka ay ka sugayso wararku iskhilaafsan yihiin laakiin ma jiro madax Soomaaliyeed oo shacabka la hadlay oo yiri heshiiska aan galnay waa intaas madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa laga leeyahay in uu shacabka u faahfaahiyo Ethiopiaankan shalay lagu beeriyay nacaybkooda ee banaanbaxyadu dhacayeen ee Soomaaliya ha noolaato lahaa maxaa maanta gacal iyo sokeeyo looga dhiganaya ilaa ay hadda cid jawaab rasmi ah u hesho waa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyaddana waa iska owdaba saxaafadda oo dhan iyo in uu warbaahinta la hadlo kaamiradiisa gaarka ayuu muuqaale isaga soo duuba iyada ayaana soo deysay wax su'aalo ahna lama weydiiyo taas oo shacabku dhibaato badan ay ku qabaan aanan la ogaan karin xogta dhabta ah waxa uu damacsan yahay madaxweynaha iyo sidoo kale heshiiska uu galay waxa uu qeexaya intuba hadda wixii ka dambeeyay waxay noqon doontaa in Ethiopia oo 120 milyan ay bad kugu yeelato ra'iisul wasaare Abiy ugu bilihii ugu dambeeyay sanadii 2023 khudbado dhowr oo uu jeediyay wuxuu sheegay xoog iyo xeelad midii ay doontaba ku timaadeen Ethiopia waa must ama waa waajib in ay hesho bad ayuu yiri khudbad dheer oo uu ka jeediyay TV-ga markaasi dawladda wuxuu ku sheegay in aysan suuragal ahayn Soomaaliya oo 18 milyan inay lahaato xeebta labaad ee ugu dheer Afrika Ethiopia oo 120 milyan ahna aysan wax badan lahayn taasi wuxuu yiri suuragal maaha xoog iyo xeelad miday doontaba ha noqoto waa inaan bad helna ayuu ku khudbay xilligaas warbaahinta Soomaalida aad ay warkaas u boonboonisay bulshada dhagahooda ay ku shubtay oo waxay tiri bal bulshadiinu ha ka warhayaan oo doorka warbaahintu ay gutaan laakiin shacabkiina ma baraarugin madaxdiina waaba kuwa iska iibsanaya badaha iyo bariga oo aan dan sidaas u badan markaasi ka lahayn Abiy in Muqdisho u kala xiraato shacabkeedu maanta ay dhibaato wajahaan bukaanadii isbitaalada la geyn waayo waxa sabab u ah nin yar oo xabashi oo Ethiopiana oo markaasi magaaladaada kugu yimi isla markaana kugu bahdilay madaxdeenu marka ay tagaan dalalka kale maamuus noocan oo kale ah ma helaan wadooyinka sida loogu dhajiyo waad yaabaysaa dadkiina 2 maalin ka hor ayaa markaasi waxa loo diiday in ay goobahooda ganacsina furaan wadooyinkana si xor ah markaasi ku maraan in Ethiopia gacalka intaas la eg loo muujiyo sidaad u aragtaa daawada qaybta hoose ee faallada noogu reeb hadaynu eegnana markan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar waaberigii hore ee saak ku soo qaaday degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo qiyaastii 40 kiiloomitir wax ka yar u jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kooxda al-shabaab wali waxay muujinaysaa inay awoodeedu tahay mid nool isla markaana weerari karto meeshii ay iyadu doonto waxa kooxda ilaa iyo 8 barqanimo ay ka dagaalamayeen 2 saac subaxnimo degmada dhexdeeda waxay la wareegeen saldhigga degmada iyaga oo muuqaal la soo duubay ay muujinayeen iyadoo ugu dambeyn degmada laga saaray sidoo kale qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanadii maalmihii la soo dhaafay lagu dagaalamay iyaduna maanta waxa ka dhacay dagaalo kale oo qarar sida wararku ay sheegayaan si kastaba ha ahaatee kooxda shabaab wali waxay u muuqataa in ay markaasi awoodeeda muujinayso iyada oo qaadayso weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah si guud xaaladda kale ee dalka hadalhayntu waa soo dhaweynta Abiy isoo kale madaxdeenu waxa ay u muujinayaan bal daawadow adigu sida aad u aragto iyo soo kale doorarka ay dawladdu siinayso madaxda Ethiopiaanka ah iyo wax hadana ee anaga noogu jira qaybaha hoose ee aragtida ayaad xor u tahay fikirkaaga noogu reeb sidoo kale subscribe na soo dheh like saar muuqaalkan siina share garee aad iyo aad u mahadsantahay daawada